السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مeel kasta aad ka joogtaan dunida daafaheeda kusoo dhawaada channelkeena isku filan cooks. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago bariiskan oo aan u karin doono sidii biryaniga camal, laakiin biryani ahayn ama surbiyaanka qofba sidii u garanaayo. hadda koor waxaan soo geliyay channelkayga ku jira bariis aan biyaba ku karin haba yaraatee oo aan ku kariyo caanaha garoorka ama habi wibinka ama ma aragtay la dhaho butter milkiga. marka hadda kii oo wax yar ka bedelan aan karinaya maasha Allah huurisa la dhahaa bariiskan waan huurinaynaa iyo sidii aan ku hirgeliyay insha Allah ila daawada kusoo dhawaada channelkeena mar labaad iyo mar saddexaad. aad waxaan iga mahad celinayaa daawashadiina meel kasta aad ka joogtaan dunida daafaheeda. aad ay u mahadsantiin raaliga ahaada. okay maasha Allah waxaan sameeyay dhammaan wixii aan ugu talagalay hilibkii, yaanyadii, xawaashiyadii, basashii, toontii, kabsartii, wax allaala waxaan ugu talagalay maanta inaan bariiskayga ku isticmaalo. waxaan isugu geeyaa hal weel sababtoo ah waxaan isticmaalayaa mashiinkaas oo magaciisa loo yiraahdo pressure cooker. marka maamooyinka iska ciidanka xun buu caawiyaa intaan wax kala qabsanayo ama ilmaha u qubaynayo ama hawl yar oo kala soo qabsanayo 30 daqiiqo gudahood waxaan rabaa inuu diyaar igaga dhigo hilibkii aan ugu talagalay inaan bariiska ku karsado. marka maasha Allah hadda alaabta halkan aan ku gedinayaa kabacdina 30 minutes baan ku daarayaa 30 daqiiqo suugadaydo maasha Allah diyaara. bariiskii oo dabka saaro idin tusi doono sida u sameeynayo ayaynu isku arkaynaa. maasha Allah sida u jeedaan baa wakaasa mashiinkaygii kadibna daboolkiisa ayaan ku xirayaa. lambarkan aan halkan ayaan ka daarayaa waxaan geynayaa 30 minutes kadib maasha Allah alaabtaydo diyaar oo dhagdhagan ka dinsan doona ilaahay idinkiisa. maasha Allah 20 daqiiqo ayaan u geeyay hilib meesha ay ku qoran tahay meat ayaan geeyay. marka 20 daqiiqo kadib hilibkaygu waa diyaara mayna is arkaynaa insha Allah. maasha Allah hadda waxaan dabka saartay biyihii loogu talagalay inaan ku daro bariiska. sida u jeedaanba waxaan ku daray filfil, waxaan ku daray hayl iyo qorfe. 3 shay baan ku daray. maasha Allah qorigan dheer waa qorfe, kan ag yaalana waa hayl, waxa madowna waa filfil. 3daas aan ku daray marka biyahan karkarinayaa. maasha Allah bismillah bariiska noo bislaaday, suugadiina way noo bislaatay. arbana suugada si fiican idin soo waadaxa. maasha Allah u jeedaan suugadeena sida ay u eg tahay. waana suugadaas rasiinka ku noqoto maasha Allah saas ah. okay bariiska wax yar ayuu adag yahay marka insha Allah inta ka oo adag yahay waxa qoyn doonta suugada. okay marka ugu horeysa waxaan sameynayaa sidii inaan liisaan karinayo camal. bismillah waxaan sameynayaa waan ku shubayaa digsiga cagtiisaan gaarsiinayaa. waa kii aan ugu talagalay inaan ofinka ku geliyo. marka suugada waxaa xoogaa qoyaanka aan uga dhigay oo ugu talagalay inay maasha Allah ka dhigto maadaama uu bariisku adag yahay. bariiskayga waa similar hadda ka hor bariis aan soo geliyo u dhow yahay, wax badan kuma kala gedisna. marka maalinba inaa xoogaa indhaha wax yar ka bedesho waa iska fiican tahay. inaa hal nooc stick ku noqoto ma wanaagsana ama aad hal nooc ku dhegsato tiraahid aniga saa inaa u kariyo ma ahe bariis maba karin karaba. maalinba nooca la iskaga walaaqdaa waxaa laga yaabaa inay kula noqoto markay dhadhamiso wax dhadhan ku kala duwan. marka maasha Allah halkaasa taasaan ku bilaabaan ku dhameynayaa sidii inaan liisaan karinayo camal. marka hadda ka hor waan soo geliyay isagoo aan ku sameynayay chicken. marka maantana waxaan ku sameynayaa hilibka ariga. ujeedin maasha Allah aniga kanaan jecelahay ka kale ma jeceli maxaa yeelay aniga reero chicken ma ihi. chickenka reality ma ka hadlo reero chicken ma ihi. marka ama chicken qofkaan garanayn reero digaag ma ihi. marka akadaana bariis iyo hilib ari cunin kana bariiskayga aniga. marka kaamirada sidaysa inoo ka dheeraanin saasaan ku bilaabaan ku dhameynaa. waa inoo gabagabada waan dhameeyay. hadda ovenka waxaan geynayaa 350 daboolka ayaan u dheeraynayaa.
markan daboolku dheereeyay 350 oo finka geena 20 daqiiqo kadib ayaan asagoo diyaar inooga soo saaraya markaasna waxaan sii diyaarsanayaa waxyaalaha aan korka uga qurxin lahaa ما شاء الله تبارك الله look at this alaabtan fiiri sida way agtahay spinach iyo broccoli iyo carrot iyo ay qudaar iyo sabiib ama raisins qofba ku garanaayo ayaa degsi gooniyo ku sameeyay badhar yar cusbeeran ku daray hadda waxaan korkaan ooga daray maxaa yeelay waxaan rabaa ciyaalkayga caawa insha Allah inay cunaan bariis habeen waaye iyo cagaar marka bariiskii cagaarka waan isku sameeyay sida ayaan ku soo baxay ma sha Allah channelkeena haddaa ku cusub tahay subscribe garee sidaysa ku dhaafin waxyaalaha cusub aan soo gelino haddaana la joogi jirtay fadlan inta taamisaba u qalmo waa xaqiina taamisabka siisi la share garee walaalahaaga kale siday uga faa'iideystaan cuntadan caafimaadka u roon oo laashin maanta idin soo diyaarisay inta hawada marka la isku arkayna ana wax wanaagsan idin wada waxaan naga tagayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh inkastoo aan jeclaan lahaa intaan saxan ku soo guro inaad ila aragtaan إذا هالكان ما شاء الله هذا مشغول سنة هاي مشغول بانا هاي رالك هذا شرقان طورة مارك ما شاء الله انت هسا إن لو ذاقي نعاوة أنا وكب حين وانقصه النقدين محايلي إن هذا أركت العنطة السيدي أكسه بحذا مركي دبك لقى قاعدة ويفي عنتهاي هذا وحن قرآن وحد يقول معنا يسا ما شاء الله بريس أنا حبد هاي سنين فرفر مارك ما شاء الله بريس كمركز صعب كرنيس ويراه وحي بيه هاد مركا كو كرنيس معانا النوع والبابا هذا اللي يقول كأم غيان كمركا استعمالي سب هذا وحن الله انتاس أنا وكبحي بان كسر نقدر عليك هذا طبيعة ده واي مامدان هذا الكذا حوجا إسكبتن ما شاء الله